kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha May 2025 waa maalintii loo madlanaa inuu furmo shirka madasha wada tashiga qaran ee ka furmeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haddaba waxaa ka soo kordhay shirkaasi maanta ma furmay xogo cusub oo naga soo gaaray shirkaasi iyo furitaankiisa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo shuruudo adag ku xidhay ka qaybgalka shirkaasi ayaa qodobkeena koobaad ku dul istaagi doona. qodobkeena labaad maxaa ka jira in qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay shuruud uga dhigeen ka qaybgalka shirkaasi in madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo uusan qayb ka noqonin shirkaasi. waa kuwo base madaxweynayaasha lagu tuunsayay amaba xogtaasi laga helay ee diidan ee ka hor imaaday in madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo uu qayb ka noqdo shirka madasha wada tashiga qaran ee maanta isniina la filayay inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. iyadana waa idin la wadaagi doonaa xogtaasi iyo waliba halkaan ka helay iyo madaxweynayaasha diidan ayaan iyadana soo qaadan doonaa. waxaan dhinaca kale to mid iyo labo ka dul istaagi doona khudbadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu kaga hadlay safarkiisii magaalada Laascaanood isla markaana uu ku tilmaamay in uu shirkaasi Laascaanood uu ku tagay uu furay wado nabadgeliyo midnimo wadajir iyo waliba uu door muhiim ah ka qaatay isweydaarsiga maxaabiista Puntland iyo waliba Somaliland in ay maxaabiis ay isdhaafsadaan iyo doorka dowladda federaalka ay ku lahayd ee uu sheegay ayaan iyadana soo qaadan doonaa. dhinaca kale waxaan dul istaagi doonaa hadalkii wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo isagana sheegay in SSC Khaatumo ay noqotay buundada isku xidha dowladda federaalka iyo gobolada waqooyi ka hor intaan la aqoonsanin maamulka SSC Khaatumana aysan jirin buunta isku xidha gobolada waqooyi ama maamulka Hargeysa iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba buuntadan muxuu ula jeedaa maxay soo kordhinaysaa SSC Khaatumo aqoonsigeeda amaba maxay ka keenaysaa oo natiijo ah maamulka gooni-goosadka ee muddada badan gaarka u taagnaa ee ka shaqeynaya kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed. Khaatumo maxay soo kordhin doontaa iyadana waan dul istaagi doonaa hadalkaasi oo siyaabo kala duwan bulshadu ay u qaadaan dhigaysa saacadihii la soo dhaafay. soo dhawaada muuqaalka la isaaro aragtidiina nagula wadaaga qaybta commentiga. aynu ku bilownay 12 saac ee ugu dambeeyay maanta waa isniin waxaa loo madlanaa qabsoomidda shirkii madasha wada tashiga qaran oo 1 May la rabay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho balse fashilmay oo dowladdu haddana ay muddo kale u qabatay oo ay muddaysay in maanta isniin ah oo taariikhdu ay 5 tahay uu ka furmo magaalada Muqdisho. haddaba shirkii ma furmay xaaladiisu waa sidee? wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho iyo xogo hoose ka soo baxaya madasha wada tashiga qaran iyo mas'uuliyiinta sida hoose ula socota qabsoomidda shirkaasi ayaa sheegaya in shirkii maanta isniina uusan furmin una la furmilayahay sababo la xiriira in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay shuruudo hor la imaadeen. waxaa la filayay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan iclaamiyay isagana de hormuudba u ah ay saaxiibo dhow u haysto oo ah saddexda madaxweyne maamul goboleed oo waayihii dambe la shaqeynayay sida madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariyo Qoorqoor. saddexdaasi madaxweyne ayaa la filayay in saaxiibka ugu dhow ay yihiin ayna meesha ka maqan yihiin oo ay ku soo biiri doonaan labada madaxweyne maamul goboleed ee kala ah Saciid Cabdullaahi Deni oo Puntland iyo SSC Khaatumo oo Firdhiya. Jubbaland iyadu waaba laga reebay oo warqadii casuumaadda lababa siininba oo madaxweynuhu wuxuu yidhi mandate uu ku fadhiistaba ma haysto waa nin qaswado ah oo dalka qas badani ka geystay baa la yidhi oo lagu dowladda federaalku ay ku tilmaantay. sidaas awgeed khiyaano qaran ayuu geystay ninkaasi isagoo casuumaadba lababa siinaya baa la yidhi warqadda casuumaadda lama siinin. arrimaha marka soo baxay iyo xogaha soo baxaya waxay tahay in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo midka Galmudug Axmed Kaariyo Qoorqoor ay shuruudo la imaadeen. Axmed Kaariyo Qoorqoor isagu wuxuu wataa shuruudo ah in dowladda federaalka ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wato dad kaleeto oo waliba uu doorashada Galmudug iyo hawlaheeda iyo hanaan baalmarsan dastuurka uu ku dhaqmayo oo ayagu isagu cabasho kaleeto wataa. laakiin Laftagareen waxaaba leeyahayba isagu wuxuu shuruudo soo hordhigay oo uu yidhi
SSC khaatuma hadday soo fadhiisato cabdiraxmaan ninka waxa weeye firdhiye madaxweyne cabdiqaadir oo cali firdhiye uu soo fadhiisto anigu shirkaa kama qayb gelayo weliba aan bayaanin ee xogta soo baxaysaa waxay tahay guddoomiyaba hadduu soo fadhiisto iyo lascano uu soo fadhiisto anigana guddoomiyaha xudur ayaan u dirayaa shirkoo soo fadhiisanaya waa arrin sidaasi u eg hadalkiisa waa sida loo soo turjumay macnaha loo soo turjumay markayna leeyahay waa sida ay warbaahintu ilaa siyaasiga siduu hadalka u dhaho tafaasiil dheeraada laga bixiyaa markii qoraal laga samaynayo oo waa la faahfaahiyaa waxaa laga yaabaa siyaasigu inuu hadal ishuwisan oo siyaasadaysan laakiin ujeedihiisu uu meel ku fooraro inuu sii daayo laakiin warbaahintu ay faahfaahisaa laga yaabaa qoraalkan aynu soo qaadanay meelo kala duwan oo warbaahinta gudaha aada loogu qorayaa waxaan si toosa uga soo xiganay in madaxweynaha waxa weeye koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen uu arrintaa shuruudda ku xidhay oo qoraalkaasi qoray tv-ga 5 somali t v waa t v weyn oo soomaaliyeed soomaaliya iyo dalka dibadiisana ka howlgala tv-gaas ayaa qoraal dheer uu soo geliyay wuxuu ku sheegay in xogo hoose ay soo xigteen oo ay ka soo xigteen weliba state house-ka baydhabo ama maamulka koonfur galbeed in cabdicasiis laftagareen uu shuruud ku xidhay inuusan shirka cabdiqaadir ou cali firdhiye uusan fadhiisan hadduu soo fadhiisto cabdiqaadir ou cali firdhiye inuusan isagana tegaynin ka qaybgelayn maalmahan dambena xoogaa way soo socotay in laftagareen uu tabashooyin qabo oo uu leeyahay waxa weeye uu rabo inuu ka hor imaado nidaamkii ay isla wadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo isaga oo xoogaa uu ka biyadiiday asbuuc ka horna waad ogsooneydeen inuu shir la galay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka qatar ay ku kulmeen si kastaba arrintaa way soo socotaa laba shuruudood baa hadda hor yaalla deni isagu waa la qanciyey baa laleeyaho wuu imaan rabaa xilli uu imaanaya lama garanayo laftagareen iyo qoorqoor shuruudahaas bay iyagana wataan isku doodduub waynu eegi doonaa ninka diidan jiritaanka SSC khaatumo isagana jiritaankiisaa la diiday oo waa iska fududahay oo waxa weeye wax dhiba male laakiin shuruudahan cusub iyo iska qabsigan iyo shirkan qaabka uu qabsoomo waynu eegi doonaa ka hor dhici mayno waa xogo dheeriya oo haddana soo gaadhay laakiin faahfaahin dheer ka bixin mayno halkaas baan ku daynaynaa intaa u dhaafi mayno waynu eegi doonaa ninka diidan in shirkaasi ama shuruud uga dhigaya hadduu maamul hebel uu soo fadhiisto anigu fadhiisan maayo ama ninka shuruudo kala wataba bannaankayba imaan doontaay oo maanta waa maalintii loo madalanaa shirka inuu qabsoomo fashil buuna u muuqdaa inuu waxa weeye uu maantana uu wejigiisa ku bilowdo waynu eegi doonaa dhinaca kaleeto ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa khudbad dheer oo uu jeediyey waxa uu kaga hadlay safarkiisii laasacaanood safarka wuxuu ku tilmaamay safarkii nabadda safarkii midnimada safarkii wadajirka iyo isku xidhka gobollada waqooyi iyo dowladda federaalka waxa uu sheegay in safarkiisa nabad uu soo kordhiyey uu sabab u noqday isweydaarsi maxaabiis uu sabab u noqday dad soomaaliyeed oo ay soomaali kala haysatay oo adduunkaan horay uga dhicin siduu isagu sheegay weligeedaan horay u dhicin waa la dagaalami jiray buu yihi soomaalidu weligeed way dagaalami jirtay maxaabiis la kala qabsado oo la kala qafaasho aan horay u dhicin ayuu sabab u noqday buu yidhi in maxaabiistii la isku sii daayo inta kalena baaq ayuu ka diro wuxuu yidhi maxaabiista dadka soomaaliyeed labada dhinacba ay kala haystaan ha sii daayaan buu yidhi ma xumo in maxaabiis la isku sii daayo ceebna weeye in dad soomaaliyeed oo walaalo ah oo adduunka markii loo fiiriyo qoys yar ah in waxa weeye ay maxaabiis kala haystaan arrin fiican maaha laakiin sidee lagu sii daynayaa maxaa sabab u ahaa in maxaabiis la kala haysto waxaa sabab u ah dadkan horta dagaalamay laba beelood ma aha waa laba maamul labada maamul ee dagaalamay haddii ay dagaalkoodu hadda galmudug tusaale galmudug iyo puntland laba deegaan oo kasoo kala jeedaan mar walba dagaalama waad ogsoontihiin deegaanka jicboor in mar walba lagu dagaalamo maxaabiis baa la kala qabsadaa haddana markaaba waa la sii daayaa muxuu ku salaysan yahay laba deegaan oo walaalo ah oo laba maamul kasoo kala jeeda ama laba beelood oo laba maamul kasoo kala jeeda ayaa dhul isku haysta labada maamulna daacad bay ka tahay in amniga la dhameeyo waa jiraan siyaasiyiin iyagu fidmada ka shaqaynaya laakiin
maamul ahaan markaan majority-ga fiirino waxay ka yihiin in waxa weeye la xalliyay yaa ka wada go-an. haddii sidaas oo kaleeto ay tahay xaaladda waa la xallin karaa. meeshan waxaa is hayaan laba maamul, waxay isku hayaan masiir ummadeed. dad baa la isku haystaa oo deegaan baa la isku haystaa oo yaa ku haystaa mid ka mid a maamuladiiba waxay leeyihiin anaga dhulkan iyo dadkanba ingiriis baa na siiyey. haddee nin adigii oo nool kule aniga nin gaala ay kaa siiyey, sidee loola heshiiyaa? af noocea lagula hadlaa? luuqadiisu waa noocee? waa arrinta u baahan in la falanqeeyo. marka ra-iisul wasaaruhu dagaalkii ogaadeenka dhexdiisaa buu ogaaday iyo kuwii waxa weeye dadka dariskaha buu ogaaye bahashu halkaa way ka duwan tahay. waa in af loo bixiyo maamulka hargeysa jooga ee dad iyo deegaan uusan lahayn leh ingiriis baa kaa siiyey. walaadaanu ingiriis ma bixin karo. nin nool baan ahay, taariikhle baan ahay, dhulkan anaa dega, ingiriis waan la dagaalamay, nabad nagama dhexaynin, dagaal iyo colaad baan ku kala tagnay, ilaa iyo hadda meelaan ku heshiinayna ma jiro. meel aniga ingiriis aan ku heshiinay ma jiro. sidaan u dagaalanay een u laayeen, u jabiyeen, u ceebeeyey ee diyaaradihiisa iyo gantaaladiisa aan u fashiliyey, meel aan anigu ku heshiinay ma jiro. hadduu marka ingiriisi kaa siiyey anigu ingiriisi ma bixin karo. isagoo taagan baan diiday. adiga naftirkaada bale adiga naftirkaada ayaa soo ku raranayaan anigu kaa riday. haddee ninka taariikhdaa wata ee sidaa ku doodaya iyo nin kale aniga ingiriis baa 100 sano ka hor 200 sano ka hor kaa siiyey, haddii afay ku heshiinayaan ma jiro. waxaan qori ahayn, xabad ahayn oo lagu heshiin karaayo ma jiro. maxaabiista marka in la kala haysto taasa sabab u ah. haddii middaa laga heshiiyo maxaabiist cid kala haysanaysa ma jiro, cid kala qabsanaysana male. si walba haddi la isku dagaalana maxaabiista maalintaa la kala qabsado waa la isku sidee. laakiin arrinta u baahan in la xalliyo yaa arrintaas ah oo aan weligeedna heshiis laga gaadhaynin inta qofku uu ku dhegan yahay hadalka noocaas oo qof qiimo iyo qadarin leh oo sharaf leh oo dhulkiisa iyo dadkiisa maamulanaya lagu leeyahay aniga ingiriis baa kaa siiyey, ee asna uu leeyahay anigu imaan bixin kara ingiriis. taas horta weeye arrinta sababka waa in maxaabiis la kala haysto. waynu eegi doonaa sida xal looga gaadho. dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo khudbad jeediya wuxuu yidhi gobolada waqooyi buunto isku xidha iyo dowladda federaalka hadda la helay. ssc khaatumaa noqonaysa buu yidhi buunto isku xidho. waa run, buunto hore ma jirin. dhulkan ssc khaatuma ay degan tahay laba arrimood baa jiray. waa koobe horta waxaa la yidhi waa dhul lagu muransan yahay, maap baa la geliyey, disbit area la yidhi, waxaa weeye google map baa la geliyey, hay-adihii oo dhan baa loo sheegay. waxaa la yidhi dhulka waa dhul lagu muransiiyey. oo yaa ku muransan? puntland iyo waxaa ku muransan somaliland. ama haddaan si kale u dhigno koonfurta soomaaliya dowladda ka jirtay waxaa isku muransan dowladda waqooyi, gobolada waqooyi, jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ayaa isku muransan. muran baa la geliyeyba. waa dhul dadkii lahaa aysan muran ku jirin, taariikh ahaan aysan muran uga jirin, qiimo ahaan aysan muran uga jirin, halgankooda loo ogsoon yahay, ku sifaysan midnimo iyo wadajir ummad soomaaliyeed ayaa muran la geliyey. muran maadaama marka la geliyey dhulki wuxuu noqday dhul cas buu noqday. dadkii joogayna waa la kala shukaansadoo mid xaggaa u orda iyo mid xaggaa u orda iyo mid xaggaa u ordaa laga dhigay. hadda marka buundo isku xidhaa la helay. markii gobolada waqooyi laga hadlayo hadda la yidhahdo gobolada waqooyi lama dhihi karayo, waxaa la dhihi dowladda khaatumo state. yaa xagga ka sii ah dowladda somaliland state. yaa xaggaa ka sii ah haddii la aqoonsado waxaa xaggaa kasii noqonaysa dowladda waxa weye awdal state. marka state weye. adigu statekaada markaada jamhuuriyad ka dhigan oo jamhuuriyadaad ka dhiganayso dhib male. laakiin wax dambe oo gobolada waqooyi la dhihi karaayo ma jiro. magaca gobolada waqooyi ma jiro, waa baabaay. gobolada waqooyi markii la dhahayo waa markii ssc khaatuma ay la socotay. laakiin hadda gobolada waqooyi wax la yidhahda ma jiro. waa maamulka khaatuma state, maamulka somaliland state, maamulka awdal state. sidaa state weye. ilaa state daba saacsan soo bixi. muqdisho kasoo bilow, gobolka banaadir kasoo bilow, galmudug state soo mari, hirshabelle state soo mari, iyadana dadab usoo wad, waxa weye puntland state, ssc khaatuma state, somaliland state, awdal state oo aan rajaynayna iyadana sanadaha nagu soo aada 2026 in la aqoonsan doono insha allahu tacaala haddii ilaa yidhaahdo. marka state weye. marka buunto marka xidhan bay noqota. waxaa la tirtiray muran. dhulka waa lagu muransan yahay iyo maamul hebel iyo hebel baa ka taliya iyo waxaasoo dhan waa lasoo afjaray. calankii buluugahabaa gaadhay,
ceergaaba maalin dhow rajaynayna isagoo ka babanaya inaan aragno calanka buluuga uu ka babanaya kii faraska waxa weeye khaatumo state oo waxa weye iska gara babanaya in la suro aan rajaynayna waa sii soconaya tartiib tartiib baa baashii usii soconaya marka buuntaa loo helay haddii marka la kari waayo oo ay midnimada iyo wadajirka soo raaci waayaan dee waxay noqonaysaa buundadana la marayaaoo saasaa lagu gelaya marka buundada la maraya waa ss khaatumo ciidanka dowladda gaaraya kuwa nabad sugidda kuwa waxa weye militariga kuwa qaybahooda kala duwan baa gaari doona dhulkaasoo dhan bay wada tegi doonaan marka meesha waxaa ka baxaya marka hebel baa muransan iyo hebel baali iyo waxaasoo dhan iyo sheekada dhan way ka baxaysaa marka tartiib dowladdu markay ceergaabo tagto dowladda federaalka iyo stateka wada socda ay ceergaabo tagaan xaggana ay caynaba dul tagaan qoriluguna dulgeeyo aagaasoo dhan la geeyo oo ciidanka dowladdu ay gaadho tartiib baa shacabka loola hadlaya haddii la quusto soomaa dee maamulka wandhay baa cagta la marin oo lagu qabanaya oo hargeysa dhanba maalin baa lagu qaban oo maamul loo samaynaya marka buundadii loo mari lahaa ee markii horena la mari lahaa waa buundadan hadda faraskuu ka suran yahay markii hore marka balaayaa ka surnay marka lama mari karin halista ugu weyn ee gobolada loo gaari waaye maamulka hargeysa galaanka loogu yeelan waaye waa nimankan daraawiishta la adeegsanayay ee dhulkan ku jiray dhexdaa ku jiray marka daraawiishta hadda gacantaa lagu dhigay gacanta maadaama lagu dhigay maamul noqdeen iyagaa noqonaya buundadii lasii mari lahaa marka fiqina hadalka waa hadal muhiima taariikhda geli doona meel in lagu qoro u baahan qoraallo badan in lagu sameeyo u baahan warbaahinta nimankan waxaa weeye ss khaatumana ma aysan soo qorin waxaan leeya war qoraalka waa isku fiicnaydeene bahalada qoraal intaad ka samaysaan weliba hadalka waa hadal dhaxalgal ninkaas si aad ugu xustaan ninkaas waa nin caadiya ma fiqi ninkaas waxaa weeye si gaara idinku ogaada oo qoraalkaas weliba buugaag ha lagu qoro insha allahu tacala taariikhduu geli doonaa haddii ilaa yidhaahdo wixii kasoo kordho waynu eegi doonaa haddu alle